بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمانتين بأمد الصوماليين ميلا joogtaan barnaamij waarta iyo nolol qiimo leh ayaa ilaahay nooga wada rajaynaya Ramadaan mubaarak iyo mar kaleeto ku cibaadeyso nacladista shaydaanka iyo inta raacda waa mar kaleeto iyo nimankii Soomaalida ku ahaa nijaasta aynu ku naqinay inay yihiin nijaasta ummadda Soomaaliyeed maadaama ay caadaysteen ilaah cayga rasuul cayga calayhi salaatu wasalaam iyo diinta oo la cayo nimankii dhaqanka u lahaa ee nijaasta ku ahaa ummadda Soomaaliyeed ee cuqdadaysnaa ee aan lahaa rag calaacal daa'imay oo haddana cudud ku faanaya niman cabanayo ciil qaba oo ay cuqdadii jiifto awaan ururtay niman aan iscelin zuule wada caq ah canaya ragay cudur ku tahay nabad ducayn gooyo oo ciidan shaydaan ah oo daris cisaynayni Soomaalidu cirka gaari layd cadow jalaafeeya oo calanka rugaya oo ciida gadanaya doqon aan cid loo dhigan la arag soo cajabama argagixisada waqooyiga dalka Soomaaliya degan nimankii dhaqanka uu ahaa Ingiriis dhaladkii iyo sida naag dhali weydo dhawaan ee bawaxsiyo dhabta wiil yar ku haysa waynu ku dhukanayno waynu ku dhagabele xageen ka dhunkana ee gaalkii weylashka ahaa u lahaa kiss my ass nigga dabatana lahaa iyadaba soo dhawee dhabban ku jecel aynu ka dhunkana nimankii dhaqankoodu sida ahaa ee aad ogeydeen nijaasta ummadda Soomaaliyeed ku ahaa nacaybka cuqdada lafaqodashada faanka aqli xumida quraafaadka calanka beenta dawlad bug Soomaali nacaybka nijaasti noocaas oo aan ogeyn oo hadda isu bedeshay naclad nijaastu waa wax xun waa samad laga subxaanalaysto oo hadda waxay isu bedeleenba naclad caadi ah sababtoo ah waxay raaceen kuwii eebahay nacladay waxa ku dhacay jinkii shaydaanka ku dhici jiray waxaanu moodaynay in jinku uu wax kale ku dhaco dadka iyo dunyada ku dhaco dadka iyo dunyada laakiin shaydaanka qudhiisa malaha jin ku dhacayo ka waaweyn jinniga ku dhacayo kii aadamaha ku dhici jiray oo waxa ku dhacay jinkii shaydaanka dabeetana way ayideenoo maal dhawood wada weydeenoo waxaynu ku qoraan saaray ifisa dabeetana markii aad ku tiraahdo ifisa wad ogeydeenoo waxa burur ka dhacaya rusheeye inuu helay mooyaane wax kale maad moodayn ifisa markaas anaguna ku wadna ruqiyo quraan waynu saaray faataxa ku akhrinay ayatul kursi ku akhrinay hadii suuradihii lagu akhrin jiray waxa jinnigu ku dhaco dhan ku akhrinay yeeli waaye qaadan waaye waxba kari waaye markii dambe Mustaf Dhuxulow nin leeyahay wuxuu soo saaray ifisa markaasaan ku akhrinay ifisa markaasay bururaan naga daaya waanu go'aynaa warwayl ka baxaynaa markaasaan leeyahay ka bax balaaya ku qadeejiyo markaas iyo shaydaan iyo dabatana markaas ay yiraahdaan waanu baxaynaa liday markaasaan xageed ka baxaysaan fariyarada markaasaan ka xiriraa markaas ay adeeynaa war imaka waa bari dhaweyd waxay kala futadaynu ka baxayna futadan ka baxayna war futadii cid joojisay ma naqaane imaka hable xirxiris baabay ku dareen haddana imaka waa idinka arkayo EVC horta walaw sida rusheeyihii baynu ugu wadnaa oo waliba imaka aynu leenahay haddana EVC markay maqlaan ba ilaahay amarkii bay waxay sameynayaan inaad arki jirtay naaga rusheeyaad joogo galgalanayo oo gilgilinaya oo qaylinaya taasi iyo waan ku wadaynaa ifisa ka bax balaayo ku qaadaya shaydaan iyo weynaaday naclad yahay weynaatay jin iyo weynaaday ka bax wariya ka bax ifisa say u galgalanayaan geebigoodu way wada gariirayaan ka bax iimaanka laga qaadiya bahalkan ku dhacay ummadan ariyaha ifisa kusho biyaha halkaas aynu biyaha ka shubaynaa laakiin waxaynu lahayd war intii malaha way soo dhaamaan war malaha muusihii baba la qatay iyo sacad muusihii ay lahaayeen haddii la idin kelay waa qoladii dilay ku roon yahay beeraha joogtay oo caqli siyaasadeed iyo mid dawladeedba male isagu abaagadhowba ula galay imaka yuhuud kuwa geliyo oo garxajis la yiraahdo jabhadii gacan libaax la yiraahdo nacle ku dhacayo nacladii ayiday
oo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. war muuse badow baaba la qaatay iyo sacad muusihii meel fogba may gaarin, iyagu waa kuwii oramada waxba jaarka waa kuwii u dhadhacay. yaa etoobiyanu baabay u dhaadhaceen oo yidhahdaan bar qaada dhulkeennoona aqoonsee. qaar ka daran baaba yimi ilaa iyo talaviib. su-aasha markaad weydiisato waaryaarehen miyaydaan ilaahay ka baqaynina? maxaad ku caayaysaan culimada? sheekh mustafa ay caayayaan. waa kuwii berigii horena sheekh mustafa duhur shaangaxay cidlada dhigaya isku qabsaday anaa dilay iyo anaa dilay. war ma taasaan markhaati lahayn ummadda soomaaliyeed? ilaahay baan idinku dhaarshay. idoor wagashiyo kufriga wacda low yaalo waa niman walalataniyo waaga aakhire oo ina walanwal wiilkuu dhalo wiilkuu sii dhalo kii uu sii dhalo gaaladu heshan doon. waa noocii laga gebiyey taariikhdiiyo cad baa imankan hortimi. waryaarehen ilaa taariikhdu iyadaa dib isu fasirtaa. inankaagay dib ugu muuqataa wixii aad ahaan jirtay awoow haddaad tahay. 7 awowgood la naar maantayba ugu daraayeen ilaahay amarkiisa. inan quraa ka hadasho tiri waa nacladan yahay aqoonsigii naclalnaa dabeetana xabsigay ku hubiyeen. yaa dhex joogi karoo dumara ma taqaanaa adna aadan oo kale. tii waxaan keentay ee gaalnimada haddii laynku ree abaagadhaha yahuudda fisqiga haddii wax la yidhahdo magaceeda hidda dhowr haddii laydinkada lay ma garanaysaa iyo khanaa'iska meesha la yidhahdo abaarso lagu ba'ay barwaaqo balaayo makhaaniid soo baxaysa oo raxan u soo baxaysa iyo hablo haddii lay ku reeyahay ay caruur ah oo ay ku duween dariiqa lisbiyanka. adnoo kale unbaa joogi kartaa. adnoonbaa ka nabadgelaysaa. cabdimaalik muuse cordaan waad weydeen. sheekh mustafa waxay ku dhigayaan waad aragtaan. sheekh dirir waxa ay ku dhacayaan waad aragtaan. kii hadla waa la xidayaa. yaa keliyoo nabadgelaya? waxaa nabadgelaya intii naclada qaadatay, intii yahuudda qaadatay, intii dhiigga doofaarka lahayd, intii ibnu zinaha ahayd, mukhbaaradihii laga yimi, intii ingiriisku iyo dilay ku yaa wixiibaa maanta dib u dhogor dhacsadayo dawa kuwan. waryaa islaamo waar inanta ay xidheen ubax inantiibay haddana xidheen muxuu ahaa goosha ee ka hadlaysay tiri war waxani waa wax nacladan waynu kululaanay war soomaaliya naga soo gaara. waa runteed adduunka isaa qurunta ugu necbiya 4 ama 10 ilaahay ka badbaadiyey oo sida haddii lay ku ron yahay ninka la yidhahdo suldaanka iyo aadan ninka la yidhahdo waa ilaa 10 ninoon imika garanaya mooyaane intii kale nacladii bay qaateen ilaahay hortii. waa wallaahi bilah nacladii caadiga ahayd shaydaankay qaateen. su-aal baad ka weydiinaysa waxaad leedahay war nacdashan maxaad nimay? markaas ku leedahay nacdasha danta unbaa nala gashay. bal ka waran adigu haddaad dood ka dhigto nacdasha dan baynu ka leenahay mooyaane ma nihin. shaydaan bay dani iga gashayoo aan ka soo danaysanaya. maxaad ka soo qaadaysaa marka shaydaan? bal ii sheeg. bal shaydaan waxa aad ka soo helaysay markaad wuxu doonato wax ilaahay looga fogaado wax xun mooyaane ma waxnaysa bad ka soo qaadaysaa. dhuux iyo maskax iyo caqli iyo damiir iyo diin iyo dignity ay intaa ku gartaan malo adigay ku caayayaan. weliba adigay ku caayayaan. haariya dawalawo intan garanaysaa harda walaa xumare kan dibiga maxaa la yidhahdaa dibiga muxuu ahaa gibiley waxaan odaygoodii wakaa waa faysal cali waraabe. waa kan aad arkaysana dibiga muddo nacaska ee ooyi jiray waagii. oday ma jiro oo culimadii labadii ka soo baxday cayda ay dul dhigayaan. waa idinka arkayo sheekh mustafa iyo sheekh dirir iyo malaha laba kale. wixii kale sheekh ay sheeganayeen gebigoodiba shaydaankiibay dabagaleen. diintuba halkaasi ka joogto de waxay maxayna ka soo jeedaan aabbahood iyo awowgood iyo awowgii dhalay awalba ilaahay bay caayayeen. ilaahaaga iyo nebigaaga iyo diintaada waxaa ku samey nimanka oran jiray dabeetana intaynu yaabnay enula waryaareen waaba qaldaamiin. qaldaan macnay ku baxday. waxaad arkaysaa qof israacinaya faan iyo calacal lafuu soo dhoobaya halkan lafaha aad imaka arkaysaani wallaahi billahi imakay soo saaray haddana mid kale. waa waxay leeyihin waa daayeer beri hore dhintay. waa muxuu lax
waa oday beri hore iyaga ahoo haddii laydinkeeda leeyahay kanaaca dishay waa qaxootiga iyaga dhex deganaayeen berigii dambe markii ay soo galeen maxamed siyaad barre markii uu ka baxay xamar kadib kuwa soo galay dadkii marasta ay meesha ku laayeen qaxootiga ah intii bay soo saarayaan oo nala dilay wana ka diyaaradana rusheeyay oo nagula dhuftay abliiba nagala qaaday oo sigaar baa nagula baktiyay arda faqashtii uu ka adkanayo gebigeedaba wallahi billahi tallahi lixle iyo toddobaale iyo 12 iyo 9 ayba xagga cirkana qaar baa ka soo dhacay xagga gebigeedu wuu qabanayo SNM tade gebigeeda sida dabaysha muxuu ahaa ma garanaysaa ayay tornaadada ayay annagoo 8 gabigooda baa igo 8 kuna ayaa 8 ma garanaysaa 8 kaare ayaa nin qura oo la yiraahdo habaar kaare ayuu baa 8 diba intuu xagga sare ka fariibo u dhaadhacayo markaas intuu ku shisay ku dilayo markaas kow wariyaa islaama markaas waa darac bashir dib ugu celinaya wana la laayay wana la gumaaday lafaayagi waa kuwa markaasay mid daayar soo saara bari hore baqtiye dacwo markaas la isku qabsanaya wartani waa dacwo war waa nageeda dacwadii weeyaan war waa daayeerkani war waa Ciise Muuse daayeerku de meel wanaga waaba mucjisad aynu arka afkuna waa dheeriya kaga daran markaasay recoverto qadaadweynta waayo yam iyo qadaadweyn baa laygaga taaglay yaa yiri Sayd Maxamed Cabdullaahi Xasan baa yiri iyo ku lahaa tayaga nimankii la oran jiray كامل كروبس إنجليز كوش قيسرية دراوشت كورري الجاب يقول بقى الضامرة ها وش قين شري جويسية لها سود دوّ لبان كوش على إذا بقى إنه كارون كنا نقلها نوع عسايا إنه حقي كلا يروح الحق مدي مش تبرجع عن بها يعنيين عنونك يا بردنا هذي الكورة يا بسل يا دي اللي مكلم سايي ببايجا حمر يبهم بالمدى برجع سأل نمك سوغان تكي مشرتي إما كي ينوقف في الهذي أو نوقف في الهذي بينهم كورد يهوذا تو جيان أوف يا لابتك صراحة هل يتم كسر أربع حد إنه عايز ميانكو عايز مسوي حمر قاتلان شيء ربي جاء أندرسون كوبر كفق مركان كله برجع بان لا يبان وأندرسون كوبر نيكل لسيعيين هوتيل منصور هارون أقوسنا ده مخنوق الدنيا كلاجي كناي ويا دهنا وردون نون يصير لسيعي مد عطاه لسيعي المركب ونفط ديويس أو ظهر كنا جرابة عنا صبحنا كراعين كقرعة مركز سويري no I don't want this he said die now حدو الإمارية مركز سام مذو حال أو كان إمارتين واه ساير هذو بلارنو مركز no this is fat he said fat I don't want مركز أول حاجة نقول كان نجيب إنه سياسين وصلنا هاي جيب إنه فات كاسي إيو كان لمن هي أن وحى عن إمبلينو ناي يعني كوك إنه يلا بس مركز دمبو مت ماشى تجنبي ركاس من صوص كاسي صار كيف الله صار يمكن كل لسه إيو أقول سنة كمو إيمان إما كان يهود وحبك إيمان ويان نعذر بيجعلها لك لأنها بلاد وحيرة يعني والله كتير يهود وحبك إيماني خير بك إيمان ما خير بما يقال إلهي بابا الشيخ أيون على ذي بل ninka kule nacladii ilaahay qoladu ilaahay nacladay baan risq ka raadinaya markaas uu ku gulabdooday kule dama dambaynu ka leynano aryaadeen wada waa naclada waxbaynu ka raadinay bal naclad waxa aad ka raadisay bal qofka ku doodaya naclad baan wax ka raadiyay nacdal baan wax ka raadinaya shaydaan baan wax ka raadiyay aqoonsigu baan noola galay mid baa ku qabiyay ilaahay diinta اعترافك iyo aqoonsan noola galay wada waa abwaan baa lagu leeyahay waxa qofkaasi oo ku hadlayo damiirkiisa iyo diintiisa iyo dhaqankiisa iyo dadnimadiisa iyo abtirsiyadiisa oo aad halka ka fasiri karto geebi markaas ay caytamaya naclatullaahi ala shaydaan wa yahuud iyo inta raacday oo dawada nacladan inna lillahi wa inna ilayhi waxa la yaab leh inantan imika ay xireen maxay tiri waraqosiga yareen calashaha wax aan qasaare iyo ceeb ahayn kama inaan qaad dabeetana maxay sameeyeen xabsiga dhigeen wataa imika xabsi bay taala dhaqan bay ku faanayaan oo dhaqan bay sheegayaan dhaqan waxay u leeyihiin hablaha la xirxiro inta adna xirimayaan iyo inta gaalaysa iyo inta caruurta lumisa iyo inta hoogooda ka talisa iyo inta shaydaan ku tira habar shaydaan xirimayaan yay xiraan qofka damaqa leh yay dilaan sida Sheekh Bashiir oo kale yay xiraan taasoo kale iyo
iyo ninka la yidhahdo cabdimaalig muuse cordon iyo inta lamida iyo inta iyo sheekh maaldood ay xirayeen kuwaas yaxray yay caayaan waxay caayaan sida sheekh mustafa iyo sheekh dirro ilaahay hortiya yay raacaan adnoo kale iyo faysal cali waraabe iyo kuwa culimada lagu sheegayo ee gebigooduba diinta ilaahay diinkoodin qabay maxay diinta ka been sheegeen qabyaalada iyo nacdasha ka raacay diintii ilaahay uu soo dejiyay ee ka been sheegay somaliland ibnu snm binu isaaq binu naclad raac intaa ku abtirsanaysa sida adnoo kale taa adna hawsheedii way socodsiisay intan iyadoo doonaysay awalba diin bay fidinaysay in badan baan ah waraadna wadada ka aqaanayo ilaa iyo toddobaatameyadii ayaan iqoyna ugu wallaahiya iyadoo bulbul qabo iyadoo maxamed raahin qabo iyadoo xasan kayd qabo war intaba waan qiilnay war walaasheed baan halkan wax uga caasay war diintooda waan aqaanaa reerkan maxaad islaanta wax uga sheegaysaa islaam qof islaam aad la yidhahda car waa kaasay adna shahaadanaysa arka car iyadoo xajka taagan arka waa munaafaqad oo sheegi maysa da waxa ay tahay hooyaday baa gaalad ahayd aabbahay baa ma aadam dhakhtar baa islaam ahaa xaguu islaamnimada ku arka inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun nin yaqaana baan anigu ahayo ma dambaabo waa in rabadaan war ma garanaysa hadda qofna gaalayn maayo muslima adno caawo way muslimi kartaa laakiin muslim may ahayn kumana dhalan kumana iman yani kuma korin anigu inay odaygu markuu gaaloobayay dhakhtarka boogardhayaha laga dhigayo berbera iyo wixii ka dambeeya ma garanayo inay dhalatay iyo ka hor inay dhalatay laakiin inta anigu aan bartay waa inta anigu dhashay kadib ilaan ugu yaraan 20 gubay ga weyn tahay war ma garanaysaa haddaba mid la yaabayno nimankani dhaqan bay sheeganayaan hablaha miday bal inta ka warrama ilaahay baa ku laashay maxay tiri kelmaday tiri ku xidhay waa nacdasha maxaad uga hadlaysaa laakiin la yaab ma laho nimanku dhaqan baabay u leeyihiin hablaha inay dilaan iyo hablaha inay xiraan buugaag waa kuwii ka qorayay waa nimankii dhaqan bay sheeganayaan haddana waa kuwii hablahooda nimankii buugaagta ka qoray ilaahay baa idinku dhaarshay inanta garxajis ninka guursada looma martiyi karo oo hilibka dhadhamay ku dhamaysaa ilaahay baan idinku eg raganimada xataa meesha ay ka taagan yihiin iyo dhaqanka ilaahay baan kugu dhaarshay adigoo shakhsi Soomaali ah oo dhaqan leh oo nin raga ah oo diin leh sidaa ma fikir leh xataa ayda noocaas xataa ma ku fikiri kartaa wallahi inaan ku fikiri karo ayda inta leeg wallahi iyo billahi markii aan maqlay buugaas rabbi baan ku waxaan qaadan waay wax kaliya waxaan isku diiday warninku ayda inta leeg isagoo nin ah war isagoo Soomaali ah war isagoo dhaqan leh waxan sidoo hatta yani qof wax jira maaha laakiin sidaa qofka ka fakiray duntiisa iyo dhaqankiisa iyo dhuuxiisa waa noocee tasan isweydii haddaba waxaan leeyahay horta awalba dhaqan ma ilahay noo hablaha waa idinka ku sida boogagta hablihii isaaqeen noo dhaxeeyay ilaa hablaha cayba ma laho waa hablaheennii kaasaa waa adeera nooca diliga aad moodee hor taagan acuudu billaahi daas ilaa lillahi wa inaa ilaihi waxaasoo miiranoo ku batay oo awowayaal iyo adeera ah waxaasoo miiran iyo ku sheeganaya iyo ku sheeganaya oday iyo ku sheeganaya siyaasi war waxaasa dee reer ba'ow laakiin reerku garan way bixin in badan ba way banayeen ilaahayna mid buu ka bixinay sida Sheekh Bashiir isagana iyaga dilay inan baa ka baxaysay iyadana way dilayeen ama way xirayeen inta ka dambeysana waa kuwa buugaagta war beentay horta inay buug ka qoreen ma beentay baa gubgubanina aabahagi hablaha wax ka qori jiray haddii la idin ka dilay Sheekh Bashiir ku faanayana dilayay haddii la idin ka yahuuda uu ooyay nacaaska ahaye adna daba jooga ahaa ee makhnuud daba jooga ahaa waxaan arkay waa idinkii ma beentay baa inay adna lahayd walaalkay waa makhnuud markii lagu dhufto ayaan aniguna farxad la dhididaa ee argagixisada xamarran raacine makhaanid baynu leenahay oo walaalkay baa markii lagu dhuftaan farxad la dhididaa aqoonsigii baa wuxuu ka galay meel aysan gelin iyo futanin iyo haddii la idin kara yahuud iyo shaydaan iyo nacle iyo acuudu billaahi intiibu dalaq
كدحير وكذا بقى الباب كي عذابتي قراعين قب الباب كي شيطانك غيق وكفر مركاسيري هيا بعد رطان مركاسيري انا قفر ده الباب كون كوس عنا قونسي من راديننا صوت قلبي دلق وكل حجر waxaan daba ummadda Soomaaliyeed faraya waxay soo sidaano waxa ay iyagu yihiin waxaan nooga daran waxay soo sidaan naclad waxay soo sidaan diin la'aan waxay soo sidaan yahuud waxay soo sidaan dhaqan xumo waxay soo sidaan in wax kasta oo ibni aadamka u xun oo aakhira u xun oo adduunka u xun oo dad u xun gaal iyo islaam intii bay soo sidaan nimankan waa in jihaad lala galaa saddex argagixiso ayaa Soomaaliya imika ka jirta watan villa Soomaaliya joogta ee daydayga ahay barakicinta ee aqalkan ka saar islaanta dil odayga dil ya balaran rawa beesaan rawa xabaalaha badiilkan la dhacay lagu barwaaqooyo ilmahayga lama saynisay baratayo boobkii lagu raayo lama kalana beecii gabdhaha beesa laga keenay jaamacad balaayaad ku galay soona bixin maanta dhul banaan waxaan boobayaan kuwa kala biisha baahidan ku soo koray midnaba barka kama hayso baasi kii laga reysay ee habartu beecisay ee habar gidirtan boolaystay ee barakacshow heedha waxa ay bartaasi fadhow sacabka boobsiya digalana caabkii baktiga iyo baraxi waa joojis dabatana ayuu sacbiyayaan dahda argagixisadaas oo meel ah tii al-shabaab oo imika aad isleedahay way ugu roontahay iyo argagixisadan yuhuudda wata ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliya su'aalan weydiiyo argagixisada al-shabaab ma ogosha in yuhuud soo gasho laba argagixisadu magac un maaha waa ficil waa dhaqan tan maanta oo rabadaan ah xamar ku barakicinaysa dumarka iyo carruurta dhiigga qubaysa koow tan al-shabaab oo imika dee aan ognahay inta iyadoo ilaa kada qaraxyaday dhigaysay laba tan yuhuudda soo wada ilaahay baan idinku dhaarshay saddexda isgarab dhigo waa wada argagixisay ilaa argagixisadu magacuun maahane war saddexdoodii yaa la qaatay rabbi baa al-shabaab ma gashay in yuhuud la keeno iyadoo dhan barakicinaysa miyaad aragteen oo dhulka naga qaadayso oo maartay wax walba lacag uun ka dayaysa miyaad aragteen maya waxbay qarxin jireen kuwaanuba waxbay dilayaan de waxbay xirayaan waaya yahuud ma keenaysaa ama dibadaha laga wadaba laakiin al-shabaab ma u bareeri kartaa inay yahuud ama ma joogaysaa meel ma fadhiyaysaa haddii yahuud dalka soo gasho maya wallahi inay fadhiyay xasan hoostuu kala socdaa dadka wuu barakicinayaa waa tuug oo weliba tuugadu kala xune tuug waa tuug sidiisaba laakiin waa sii kala dhaqan xun yahay xasan waa nooca tuugada ugu liita ee ugu xun ee ugu anyaanyufsan ee ugu dhaqanka xun ee digsiyada xada wallahi madaxweyne uu noqday dhulka ku aaday waa nooca waxba aan ka tegin dhariga dabka saaran nooca aan ka tegin way xagaaga dhig kuwan naclaha raacaya naclada ah ee hargeysa jooga waa intaba waa ka sidii laba argagaxisa waa ka darin أخص الأرجحسة نعلة الله على أرجحسة واليهود والشيطان والرعيتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل عبادة يسوع وحنو ديدو شيطان كود نعلدو انتو هو عبادة كل عبادة يستو أمد سوالي باشد كوارك تام أمد سوالي وحلي ورتعب كود العذاب وحي تعبيان بكترني وحي سو سيداني انتانين وحن نغصو فيدين ورأينو كورتقلو الكاسان كسو كوبيا يانن زبادين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.